رئيس الوزراء hore xukuumadii Soomaaliya ee badbaado qaran mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta soo gaaray caasimadda wadankan Zambia ee Lusaka isagoona ka soo kictimay caasimadda midowga Afrika ee Addis Ababa boqolaal dadweyne ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay ra'iisul wasaare Gaas dhismaha gegida diyaaradaha caalamiga Kenneth Kaunda ee magaalada caasimadda wadankan Zambia ee Lusaka sidoo kale waxa soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay safaarada Soomaalida ee wadankan Zambia ugu horeeyo safiirka Soomaaliya oo fadhiya wadankan Zambia iyo waliba saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankan Zambia haddaba waxaa noo suura gashay inaan waraysi gaaban la yeelano mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas si aan wax uga ogaano ujeedada safarkiisa uu ku yimid wadankan Zambia mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ku soo dhawaad wadankan Zambia soo dhaweyntan lagu sameeyay dareen intee leeg ayay kugu beeraysaa bismillaahi rahmaani rahiim waxa weeye aad baad waxaan ugu hadlaqayaa jaariyadda Soomaaliyeed ee Zambia soo dhaweynta fiican ay soo dhaweeyeen ugu horeeyo ambassador Daware ee safaarada Soomaalida iyo odayaasha magaalada runtii aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntiina aad baan maaragtay uga mahadnaqayaa wanaagga iyo soo dhaweynta marxabeynta intaba bal waxaad warbixin guud naga siisaa ujeedada rasmiga ee ka dambaysa safarkaagan aad ku timid wadankan Zambia ujeedadeedu safarkaygu waxay la xiriirtaa safaradii aan ku marayay meelaha kale oo yani Soomaaliya ku nooshahay sababta socodkeedu waxaan soo maray waqooyiga America, Australia, Europe iyo meelo kale Afrika ka mid ah marka taanuntaas la xiriirtaa inaan isku wareysano kala warqaadan una warramo wixii isbedelaho jiray iyo yani Soomaaliya yani hor socodkeeda iyo in laga qayb qaato isbedelkaas Soomaaliya ka dhacay muddada aad joogtid ma ku qorshaysan tahay inaad is aragtaan oo aad kulamo la qaadato dawladda wadankan Zambia kulay waxaan u midjaalada Soomaaliya wixii kala markaas dheeraad oo aan ka dibadda لكن هذا جديد وحوي أسبوع بعد صور السنة aad baad mahadsantahay mudane ra'iisul wasaare waraysigan gaaban ee CC TV-ga Universal waxaan kula mar kale ku soo dhawo wadankan Zambia Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu ra'iisul wasaare ka soo ahaa Soomaaliya muddadii u dhaxaysay July 2011 ilaa September 2012 waxaana lagu xusuustaa doorkii weynaa oo ku lahaa ka saaridda dalka Soomaaliya xilligii adka ee ku meel gaarka waxaana la filayaa inta uu joogo wadankan Zambia inuu kulamo kala duwan la qaato madaxda sare ee wadankan Zambia sidoo kale waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadankan Zambia isagoona booqan doona magaalada Indoola oo ah magaalada madaxda labaad ee wadankan Zambia ahna meesha ugu badan ay Soomaalida Zambia ku nooshahay سيد مصدق Universal TV Lusaka